Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal habeenkii xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Donow oo u dhow Shabeellaha. Dagaalkan ayaana u dhexeeyay ciidamada ADMIS sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab wuxuuna yimid dagaalkan ka gadaal kadib markii xubno ka tirsan shabaabku ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Donow, waxaana muddo kooban la sheegayaa in dagaal uu ka socday halkaasi. Ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay deegaankaasi oo marar kala duwan xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada ADMIS ay ku wada dagaalameen, waxaana dhinaca kala jirin ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dhanka ciidamada ADMIS oo ay kaga hadlayaan weerarkii xoogganaa ee Al-Shabaabku ay ku soo qaadeen deegaankaasi. Sidoo kalena Al-Shabaab ayaa iyaguna qudhowdu ka hadleen dagaalkaas, hase yeeshee ila madax bannaan oo dadka deegaanka ayaana waxay sinba u xaqiijiyeen in hubka noocyadiisa kala duwan xalaytu ay isku adeegsanayeen dhinacyadii shabaabka iyo sidoo kale ciidamada ADMIS ee saldhigga ku leh deegaanka Donow ee gobolka Shabeellaha Hoose maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana dagaalkii xalaytu ka dhacay deegaankaas u imaanaya xilli maalmihii ugu dambeysay qaybo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed oo ka socday dhaqdhaqaaqii sidoo kale guluf dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoona ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa Koonfur Galbeed iyo ADMIS maalmihii ugu dambeysay lasoo warinayay in deegaano hor leh oo ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed inay gaarayaan, sidoo kalena ay jirto in xubno ka tirsan shabaabka oo ka howlgalaya Koonfur Galbeed ay isku dhiibeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiisha Koonfur Galbeed ee saldhigyada kala duwan ku leh deegaanada Koonfur Galbeed gobolada Shabeellaha Hoose, Baay iyo sidoo kale Bakool.